أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، كلمة عاود درسي أنه كسب صنتهي الحياة الحقيقية عنوان كيدو واساس macnaheeduna waxa weeyaan nolosha dhabta ah. waxaan fahanay markaba inay jirto nolol aan dhab ahayn, xayaato aan xaqiiqo ahayn oo dhayal ah. nolosha xaqiiqada ah maxay tahay? astaamaheedu maxay yihiin? jidka loo maro muxuu yahay? natiijadeedu maxay tahay oo lagu gaadhaa? darsigeenu caawa mawduucaasuu ku saabsanaan doonaa insha allahu tacaala. allahna waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala inuuna waafajiyo wixii khayr ku jiro, zalalka iyo simbirraxadana alla subxaanahu wa tacala inuu naga ilaaliyo. walaalayaal, marka koobaad kownkan ilaahay baa abuurtay subxaanahu wa tacaala. ka inaga sarreeya iyo ka inaga hooseeya iyo kan inala simanba allah baa abuuray subxaanahu wa tacaala. kownkan baaxadda weyn ee ballaadhan ee allah u abuuray subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah insaanka, bini aadamkaa ka mid ah. waa qayb yar oo aada u yar oo ilaahay khalqigiisa ka mid. makhluuqaad kale marka loo fiiriyo waxba ma noqonayo. makhluuqaas cajabta badan ee bini aadamka ah, allah subxaanahu wa tacaala abuuristiisa, noloshiisa, aayihiisa, maraaxisha uu marayo buu alla inooga sheekeeyey subxana wa tacaala. waana midda aan ka dhiganayno hordhac mawduuca aan uga dhigayno. bal horta inaan fahanno xaggeen ka soo jeednaa, marxaladeen maraynaa, tee baan mari doonaa, xaggee baan ku dambayn doonaa. haddaad fahamto jidkaa dheer ee soo bilowday, dhexda aad kaga jirto, dhammaadkiisana aada fahanto, wax badan baa kuu kala caddaanaya. xaqaa'iq fara badan baad isdul taagaysa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi: walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin uma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin uma khalaqna annudfata calaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. براحيش بن آدم كسومري iyo midda aynu mari doonno intaasaa ilahay kaga hadlay subxana wa tacaala. wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala: waxaan abuurnay insaanka
waxaan ka abuurnay dhoobo la soo siibay min sulaalatin min tiin dhoobo la soo siibo la soo ururiyay oo laga soo xulay dhulka ayaan ka abuurnay burburi subhanahu wa ta'ala intaas waxay tilmaamaysaa asalka bini aadamka abuurkiisu xagee ka soo jeeda wuxuu ka soo jeedaa dhoobo haddana dhoobo oo dhan ma ahe dhulka qaybihiisa kala gedisan dhoobo laga soo xulay oo laga keenay oo laga soo ururiyay ilaahay ka abuuray subhanahu wa ta'ala waana mid laga cabirayo min sulala shay la soo xulay oo la soo siiyay waxa fasiraya xadiiska nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa nabigeena ka sugan wuxuu yiri allah subhanahu wa ta'ala aadam wuxuu ka abuuray min jamii'il ardi dhulka qaybihiisa oo dhan buu ka abuuray carradu waxay leedahay qayb cad qayb madow iyo qayb cad midabada dhulku uu ka kooban yahay ayaa aadam laga abuuray sidoo kale dhulku wuxuu leeyahay qayb adag iyo qayb jilicsan labada qayboodna waa qayba laga keenay baa laga abuuray saas daraadeed baa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam aadam carruurtu dhalay waxay ku yimaadeen asalkii aabahood laga abuuray bay ku yimaadeen mid madow baa jira oo inagoo kala afrikaan aadam inama dhalin miya ya afrikaanka aadam ma dhalin aadam baa dhalay laakiin waxay matalayaan carrada qaybteedii madoobeed bay matalayaan kuwa cadcad carrada qaybteeda cad bay matalayaan kuwa cascas carrada qaybteeda casayd bay matalayaan kuwa dabeecadda dabacsan dhulka qaybtiisa dabacsanayd bay matalayaan kuwa dabeecadda adag ee qallafsan dhulka qaybtiisa qallafsanayd bay matalayaan min sulalatin min tiin bu Allah subhanahu wa ta'ala carrada la soo xulay la soo ururiyay bu Allah aadam ka abuuray subhanahu wa ta'ala aadam markii rabbi abuuray subhanahu wa ta'ala waxa laga abuuray sida xadiiska nabigeenu ay tilmaamayso xaaskiisii Hawa ayaa laga abuuray feedhiisa feedhyarta feedhiisa bidixda oo feedhaha ugu yar taasa laga abuuray Hawa markii la abuuray oo aadam xaas looga dhigay waqtiga laga bilaabo bini aadamka tarankiisa iyo jiritaankiisu waxay marka noqotay thumma ja'alnaahu nutfatan fi qararin makin waxaanu ka dhignay rabbi subhanahu wa ta'ala insaankii markii hore dhoobada laga abuuray waxaan ka dhignay dhibic mani ah oo meel sugan oo ilaa 5 ku jirta macnaheedu waxa weeye aadam iyo Hawa is arke dhibic mani ah oo aadam ka tibid oo Hawa gashay oo meel ilaa 5 ku jirta waa makaankii ama waa minkii inta soo waardi baa saaran waa xidhan yahay meel la gali kara ma halkaas ku jira halka maraaxil dhowr abu ku maray marxalado dhowr oo kala dambeeya ayuu maray rabbi wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa marxaladii xigtay waxay noqotay dhibicdii manida ahayd waxaanu ka abuurnay rabbi subhanahu wa ta'ala oo ka dhignay xinjir dhiig ah taa marxaladii xigtay xadiiska nabiga fasirtay 40 bari kadib manidu markay 40 jirto kadib ayay waxa isu bedelaysaa xinjir dhiig ah xinjirta dhiiga ah kadib waxaanu ka dhignay rabbi subhanahu wa ta'ala oo ka abuurnay xinjirtii dhiiga ahay cad hilib ah cad yar mudqa waa cad afgelisa hal mar afka la gelin karo la calalin karo cad yar oo madax lahayn oo minja lahayn oo dhaga lahayn oo indha lahayn oo waxba u baxsanayn cad yar oo hilib ah oo meel iska yaalo ثم خلقنا المضغة عظاما عدتي هلبك أها بالله لغا أبوري لفهنا ذلك أمي إسليهن عد هلبة إيا اللف صومك الأدكى كلا حيوك بدن اسكو ضبع عمها هذا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هاي عدتي هلبك أها لفانك أبوري لفيه بالذحيه واقوى قعمه بابحي لغيه بالسميه مدحيه بالسميه علوش لفيه كوه إريكسنا بالسميه فاريه بالسميه لفيه بالسميه مرحلة ما حكو حكتي فكسونا العظام
laxma lafihii baa waxaa la huwiyey oo dusha laga saaray hilib waa hilibkan ka koreeyo saantii haragga wata soo khalqi cajiiba ma rabbi subxaanahu wa tacaala intaa markuu inoo sheegay baa wuxuu yidhi uma ansha'naahu khalqan aakhara waanu abuurnay buu yidhi khalqi kale buu soo baxay bal u fiirsada dhibicdii biyaha ahayd iyo dhoobadii markaad dib ugu noqotaan hadda saa tahay iyo bini aadankan indhaha iyo afka iyo dhagaha iyo qalbiga iyo xoogga iyo lafaha leh labadaa markaad isu fiiriso soo laba khalqi ma kala ah khalqi kaluba soo baxay uma ansha'naahu khalqan aakhara kaas iyo kala dheeri weeye wax isle ma aha haddaan ilaahay noo sheegi lahaynna nalaguma kareen bini aadan baa dhoobo ka soo jeeda nalaguma kareen bini aadan baa dhibicdaa biyaha ahee foosha xun ee qarmuunka badan ka soo jeedana laguma kareen bini aadamkan murmahaya ee doodahaya ee dagaalamaya ee qajaclaynaya ee macnaha waxa weeye tiknolojiyadan iyo horumarkan samaynaya ee dhulka camiraya ee waxaan oo dhan isku dubaritay miyaa dhibicdaa biyaha ka soo jeeda iyo dhoobada malaasan waa wax qariib ah fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin marka waxaa nasahnaaday oo saro maray oo khayrkiisu batay allaha subxaana wa tacaala inta wax abuurtay ee jaangoysa ugu khayr badan ee ugu wanaagsan oo yaa saa wax u samayn karoon alla ahayn subxana wa tacaala alla cid aan ahayn miyaa saa wax u samayn karta abad iska dhaaf inay wax sameeyaan ee xataa allah sameeyey oo hadda wuu isku hagaagsan yahay far hadday ka go'do isbee baarti ma loo helayo ya fartaa hadday kaa go'do isbee baarti ma lagu helayo adduunka isbitaalada ugu waaweyn haddii lagu geeyo abad in ay ku geliyaanoo fartii kugu soo celiyaan ma heli karaan inay qaabkaa wax u abuuraan warkeeda iska badda iyada marxaladaasaan marka hadda joognaa khalqigaas quruxda badan ee isku hagaagsan xubnihiisa mid walba meeshay ku habboonayd ay taallo walu fiirsada afku meeshuu ku habboonaa buu yaalla shaqaduu qaban lahaa meeshii ay jidhka kaga habboonayd buu ku rakiban yahay gacmihii mid walba shaqadii loogu talagalay meeshay ka qaban lahayd ee ku habboonayd bay taallaa lugihii shaqaday qaban lahaayeen meeshay ku habboonayd bay ku aadan yihin wahaakadaa xubin walba meeshuu ku habboonaa buu alla dhigay subxaana wa tacala aladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa shaaa rakabak allaha ku abuuray ee ku simay ee ku ekeeyey ee xubnahaaga dhammaystiray suuradaa cajabta badanna ku laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim rabbi subxaanahu wa tacaala siduu u istaajiyey khalqigan waa qaab cajab badan wey saas daraaddeed buu rabbi wuxuu leeyahay haddaad u fiirsataan qaabka laydiin abuuray iyo abuurkiinna iyo naftiinna haddaad u fiirsataan aayad way idinku filanta wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftiinna dhexdeedana aayado iyo astaamo waaweyn oo alla qudradiisa iyo awooddiisa ku tusayaa ku jira ee miyadaan arkaynin buu rabbi leeyahy subxana wa tacaala bal hal mar intaad fadhiisato adoo keligaa ah dib waxaad u fiirisaa waxaad soo martay iyo xaaladaad hadda ku sugan tahay iyo waxa lagaa abuuray iyo xaalkaaga meeshaad kusii socoto haddaad fadhiisato ood fikirto waxaa kuu soo baxaya duruus fara badan iyo arrimo cajo badan baa kuu soo baxaya waana midda rabbi subxaanahu wa tacaala inugu dhiirigeliyo ina amray inamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilahi matna wafuraada uma tatafakkaruu waxaan idinku waaninayaa uun hal arrin ah maxay tahay in aad intaad gooni u baxdaan ood keliyaysataan idinkoo koox koox laba ah mid ah inaad fikirtaan maskaxdan ilaahay ku siiya caqliga ka shaqaysay warshadan fadhida mishiinkan iska fadhiya dhaqaaji oo makhluuqaadkan kugu wareegsan bal ka fikir samaawaadkan kaa sarreeya sida saanqaafka dushaada ah dhulkan aad ku dul socotee markaad dhimatana lagugu aasayo markaad doontana aad dhisanayso markay saxara ku qabatana aad ku duugayso markaad doontana aad ku kaajayso haddana kaa xoog badan hadduu ku diido meelaan aad heli karto soo kuma diidi karo ya ima dul taagnaan karta hadduu ku yidhahdo ka war cagaha dhulka ka qaad iga qaad cagaha ya xageed geli karta
samadani hadday ku tiraado ima hoos joogayso guri kala raad xageed aadi kartaa ma meel kale aadana makhluuqaadkan kaa waaweyn ee kaa xoog badan ee haddana ilaahay kuu sakhiray ee adiga kuu layliyan ee kuu shaqaynaya bal fiiri adigaa tabarta tanan ee daciifka ah ee biyaha qurunka laga abuuray ee carrada laga abuuray ee aan waxba ahayn baa haddana waxaa kuu adeegahaya dhulkii baa kuu adeegaya samadii baa adiga kuu adeegaysa qoraxdii baa kuu adeegaysa dayixii baa kuu adeegaysa maalintii iyo habeenkii baa jadwalka lagu dejiyey oo noloshaada ku salaysantoo alla kuu dejiyey subxaana wa tacaala xayawaanaadkii iyo makhluuqaadkii waaweyna dhulka ku baahsanaa baad sidaad doonto ugu shaqaysanaysa ya war awoodda aynu inagu leenahay ee intaasoo dhan laynoogu sakhiray maxay tahay ma awoodaynu leenahay ku sakhirana mise ilahay baa inoo sakhiray subxana wa tacala allah baa inoo sakhiray subxana wa tacala waxba kama nihin kownkan aad arkaysaan waxaan ka nahay ma jirto wax alla waxaynu ka nahay ma jirto laakiin allah baa subxaana wa tacaala inoo sakhiray wasakhara lakum ma fi samaawaati wama fi lardi jamiican minhu allah baa idiin sakhiray xaggiisa inay kulligood ka ahaadeen wailaa haddii laydinku sii daayo ka ugu tabar daran baydaan iska celin karin kanaaca miyaan iska celin karna haddi ilahay nagu salliso waa inagaa maalin walba u dhimanayne ya kanaaca iskama celin karno wax kale iska dhaha waa makhluuqaad daciif ah quranjo iyo kanaaca iyo yani daksi iyo haddii laynagu sallido waxa mani ayib markii layna abuuray oo marxaladaa rabbi uu inaga soo saaro ina keenay maxaa ku xigi doonaa marxalada ku xigi doonta maxay tahay rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala uma inakum bacda dalika lamayituun kadib kuwa dhimanayaa tihiin meeshan iyo noloshan waad ka tegi doontaa nolol kalaa jirta dhimashaa jirta nolol baa ku xigta dhimashada waxaa ka dambaysa nolosha loo yaqaano xayaatulbarzakh yani waa nolol tii aakharana aan ahayn tii adduunyana aad ka tagtay guri reer dhexaad degantay meel dhexe yaad muddo ku jiri waa nolosha qabriga way ka gedisan tahay tii adduunyada midda iyada ka dambaysee aakhare iyo qiyaamadana way ka gedisan tahay waa nolol kale oo nooc kala dabeeco kale leh meel kale iyo degmo kalea degantay ayada taasina waa sii mari doontaa taa markaad martaan ma taasaa ugu dambaysa maya uma inakum yawma alqiyaamati tubcasuun maalinta qiyaamada markii la gaadho waa laydinsoo kaakicin waa laydinsoo saari waa laydinsoo noolayn rasuulkeenna waxaa ka sugan sal lla alay slam inuu yidhi markii rabbi uu damco inuu soo nooleeyo bini aadamkii dhulka galay roob baa da-aya 40 beri buu roob da-aya roobkaasi dhibicdiisu waxay gaadhaysaa yacni waxa weeye lafihii iyo dhacaankii iyo hilibkii dhulka galay markaasaa yuu isku soo ururaya waa soo samaysmayaan way isku soo noqonayaan markaasuu soo kacayaa sidii maalan geed soo baxay oo kale geedku markuu dhulka ka soo baxayo soo intuu madaxa ku dhufto dhulku ma dilaaco saasoo kale saad uga soo baxbaxaysaan qubuurtii waa meeshan hebel baa ka soo booday hebel halku ka soo booday hebel halkanoo qabrigiisa madaxa kala soo baxay waaba kan waa nolol cusub waa xayaato cusub waa barnaamij cusub wixii hore naqaana midna ma aha uma inakum yawma alqiyaamati tubcasuun maraaxishaasaan marka marayna markeenii hore maynaan jirin ilaahay baa dhooba inaga abuuray subxana wa tacaala markii xigtay abuuristeenna iyo samaynteenna alla subxaana wa tacaala qaab kaluu u sameeyey oo aabbi iyo hooyo inay is arkaan lab iyo dhadig inay kulmaan dhibicdaa biyaha ah maraaxil haddana ay marayso bannaankaa laguu soo saaray kadibna alla subxaana wa tacaala marxaladaa aada adduunka joogayso waa wakti qadaran waad ka tegi doontaayo waad dhiman qabri baad mari doontaa oo iyaduna degmo kale ah waad ka guuri doontaayoo aakharaad u guuri doontaayoo nolol kaleeta maraaxishaasi waa markii lasoo ururiyay intaan mari doonno way ayib su-aasha waxay tahay marka waxaa qalbigeenna aada ugu weyn oo cid walba raadinaysa nolol dhab ah oo xaqiiqo ah oo deganaansho iyo raaxo iyo xasilooni leh haddaan adduunka joogana waxaan rabaa nolol xaqiiqiyo dhab ah oon dhayal iyo riwaayad ahayn haddaan ka tagana degmo aakharana waxaan rabaa nolol
raaxa iyo deganaansho leh qabriga haddaan dhaafana nolol raaxa iyo deganaansho leh baan rabaa waxaan rabaa marka in la isuso jidkeen u maraa allah subxaanahu wa tacaala walaalayaal haddii adduunka la joogo iyo haddii laga tago oo aakhiro la aadaba nolosha xaqiiqiga ee dhabta ee dhadhan kale ee raaxada leh hal arrin buu ku xidhay alla subxana wa tacaala halkaa arrin wuxuu ku waxa weeyaan marka la soo uruuriyo in allihii kownkan abuurtay adigana ku abuurtay intaana ku maamulaya inaad addoon u noqoto khulaasadu waa intaas haddii la faahfaahiyo waa kutubta oo dhan rusushu dardaarankay ka tageen iyo axaadiistii culimadii salafka ahaa taa intaa unbaa la faahfaahinaya laakiin warka murtidiisu wuxuu ku soo uruursanayaa allah keligii inaad addoon u noqoto yaa waxay kuu damaano qaadi kartaa tan aad hadda joogtana nolol deganoo raaxa leh oo xaqiiqa inaad ku noolaato haddaad ka tagtana qabriga nolol ka fiican middan inaad ugu tagto qabriga haddaad ka gudubtana nolol ka sii fiicantii qabriga inaad ugu tagto taasaa kuu damaano qaadi karta taasaa damaano qaadi karta ayib noloshan hadda adduunyadaynu joogno waynu wada nool lahay midka ilaahay yaqaana kaan ilaahay aqoonin midka gaalkaa midka muslimkaa midka caasiga midka mudiica waa la wada nool yahay laakiin noloshaasi waxaa inala wadaaga makhluuqaadka kaleo dhan baa inala wadaaga xooluhu waa nool yihiin xayawaanaadku waa nool yihiin shimbiruhu waa nool yihiin noloshan kaaso oo inaad dhaqdhaqaaqayso oo nafi kugu jirto ood ordayso ood shaqaysanayso ood fikirayso oo wax qorayso oo wax qorshaynayso oo noloshaas noocaasihi waa laynala wadaagaa nolosha noocaasina macno weyn kuma fadhiso nolosha xaqiiqiga ee dhabta illah subxaanahu wa tacaala uu nolol xaqiiqiya ka dhigay waa nolosha iimaanka wey alxayaatu aliimaaniya alxayaatu alxaqiiqiya hiya xayaatu alquluub xayaatada dhabtii waxa weeyaan waa nolosha qalbiga waa nolosha iimaanka waa nolosha uu keenayo ay ka dhalanaysa allah subxaana wa tacaala raaligelintiisa iyo raacidiisa ka dhalanaysa taa wixii ka soo hadhay alla wuxuu ka soo qaaday inuu yahay bakti inuu yahay waa meyd nololba malaba qur-aanka rabbi wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala awaman kana maytan faaxyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha war ma cid meyd ahaa bakti ahaa oo aanu noolaynay markaan noolaynay kadibna iftiinkii uu dadka ku dhex socon lahaa aan siinay mid mugdiyo ku dhex jira ma la midba oo aan weligii ka dhex baxaynin labadaasi miyay simayin meyd buu ahaa bakti buu ahaa nolol baa la geliyey iftiinkii uu ku socon lahaa wax ku kala arki lahaana gacantaa laga geliyo waa la siiyey mid mugdiyo ku dhex jiro oon weligii ka dhex baxaynin iyo kaasi ma simayin jawaabtu maxay tahay ma sinna yaa weeye ruuxa baktiga ahaa ee nolosha la geliyey haddana iftiinka la siiyey waxay leeyihiin culimada tafsiirku markay aayadda fasirayaan waa gaalka ilaahay iimaanka ugu deeqay kadibna qur-aanka ku hanuuniyey iyo islaamnimada noloshani marka hadda aayaddu ka hadlayso ma aha noloshan inugu jirto orodkan iyo keenaysa dhaqdhaqaaqa iyo ma aha taa gaalkaba waa ku jirtaa laakiin nolol khaasa way nolosha aayaddu cabiraysa waxaa laga dhigayaa sidii meel mugdi ah oo meyd dhex yaallo mugdi waay gacantaada haddaad taagto xataa ma arkaysa meydna waa dhex yaalla meydkaasi haddaan naf la gelinin iftiinna la siinin ma waxbuu qabsan karaa gaalku waa saas ruuxaan ilaahay iimaan ugu deeqin waa qaabkaas meydkii horta naf baa la geliyey oo qalbigiisiibaa iimaan lagu nooleeyey markii xigtayna mugdigu uu ku jiray iftiin baa la siiyey uu wax ku kala arko
isaga iyo midka weli maydnimadii ku laaban isla markaana nuur iyo iftiin aan haysanin baktina ah labadaasi ma sinan karaan wamaa yastawi alaxyaa'u wala alamwaat ma ay sinna kuwa nool iyo kuwa maydkee baktigiihi labadaasi ma sinna barbari subxana wa tacala alamwaat hum alkufaar waalaxyaa'u hum almu'minuun dadka nool ee nolosha laga wadaay nolosha iimaanka iyo qalbiga ay tahay waa nolosha xaqiiqada ah wey waa dadka ahluliimaanka wey rasuulkeenna waxaa ka sugan sal lla alay waslam inuu yidhi ina allaha tabaaraka wa tacaala khalaqa alkhalqa fii dulma faalqaa calayhim min nuurihi faman asaabahu dalika annuur ihtadaa waman akhta'ahu dalla xadiidka axmed iyo tirmidi baa soo saaray min xadiidi axadi saxaabati rasuuli llahi sal lla alay wasalam wuxuu nebigu lehy sal lla alay wasalam alla markuu khalqigiisa abuuray wuxuu ku tuuray ama ku firdhiyey iftiin baa lagu saydhay iftiinkii maalinkaa lagu saydhay ciddii ay wax ka soo gaadhay xilliga abuurkiisa la gaadho adduunka uu yimaado wuu hanuuni iftiinkii maalinkaa la qaybiyey addoommada la kala siiyey ninkii ka qadayna adduunka markuu yimaado waa lumaya markii horese maxaa laysku dhex abuuray khalaa'iqda maxaa lagu dhex abuuray mugdi baa lagu dhex abuuray khalaqa khalqahu fii dulma mugdi baa lagu dhex abuuray mugdigaa iftiinkii la qaybiyey ruuxii maalinkaa uu wax ka soo gaadhay alla subxaana wa tacaala hanuun buu ugu talagalo waa hanuunay maalinkaa ruuxii hanuun uu gafay iftiinkii la qaybiyey si kasta hadduu yeelo ma hanuuni karo allah subxaana wa tacaala soon kuma mahadsana marka inuu iftiinkaas maalinkaa la qaybinayo wax inaga siiyo hadday idinla tahay inaad garasho teena iyo caqligeenna iyo yacni waxa weeyaan ilaahay gacan aan ku leenahay iyo awood teena iyo inaynu islaamnimadii iimaanka ku helay haddaad moodaysaan ma aha waa ilaahay siismadiis subxana wa tacaala dalika min fadli rabbii siisma ilahay wey subxana wa tacaala samafal baxti aw oo aynaan gacan ku lahayn oo aynaan sabab ku lahayn oo allah ina siiyey subxana wa tacala waxaa noloshaa dheer iftiin allah subxaana wa tacala uu bixinayo iftiinka la bixinayo muxuu yahay waa islaamnimadii iyo qur-aankii wey waa islaamnimada iyo qur-aanka wey waata rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wallahu waata aayadda qur-aanka rabbi leeyahay subxaana wa tacaala allah addoommadiisa wuxuu ka saarayaa min alظulumaati ila annuur allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min alظulumaati ila annuur waaladiina kafaruu awliyaa'uhum alطaaguut yukhrijuunahum min annuuri ila alظulumaat allah subxaana wa tacaala dadka iimaanka leh yuu la jiraayo weligooda yahay wuxuu ka saarayaa mugdiyada oo wuxuu u saarayaa iftiinka dhaalimiintana weligoodu waa shaytaan wuxuu ka saarayaa iftiinka wuxuuna u saarayaa mugdiyada shaydaan baa u ah dhaalimiinta iyo gaalada weli u ah shaydaanna iftiinkii iyo iimaankii iyo khayrkii intuu ka saara iyo noloshii dhabta ahayd buu wuxuu u gelinayaa mugdiyo dhexdoodu gelinaya nolosha dhabtaa marka walaalayaal waa nolosha iimaanka nolosha xaqiiqiga waa nolosha islaamnimada nolosha dhabtaa waa nolosha daacada waa nolosha allah subxaanahu wa tacaala aada ku raaligelinayso haddii arrintaa iyadaa iyo qodobkaasi kaa lumaayay nolosha aada nooshahay wax macnaa kuma fadhiso oo dee xooluhuba waa nool yihi doofaarkuba waa nool yahay ya oo eyguba waa nool yahay oo xooluhuba waa nool yihiinoo yani shimbiruhuba waa nool yihin waa ordahayaan nolosha kugu jirtaay qiimo male mar haddayna nolol dhab oo xaqiiqiya oo tii dhadhanka lahayd ee raaxada lahayd aysan ahayn taa iimaanka ah waata rabbi subxaana wa tacaala aayadda kale qur-aanka uu inagu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul idaa dacaakum lima yuxyiikum war dadka allah iyo xaqa rumeeyeyow rasuul alla iyo rasuulkiisa yeela markuu idiin yeedho rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya oo ma noolin miyaa markaa
سيباينون ولا ولا الله الله يا أيها الذين آمنوا باب لله معيدا نولين بالله الله ونوليهين ودغه wax lagu maqlay iyo qalbi iyo waa ku jira laakiin dhawaaqa maqalkiis iyo fahamkiis iyo noloshan laga hadlayaa laba kala ah wuxuu idinku nooleeyo oo naf idinku geliyo markuu nabigu idinku yeero yeela hayta wuxuu nabigu nagu nooleynay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu inugu nooleynaya wixii xagga ilaahay ka yimid subhanahu wa ta'ala waxyiga xagga ilaahay ka yimid quraanka الله طاعدي خيرك إيمانك تاس رسولك وإنو كيني باوحي تهي نولشي نبتا أحد حقيبا نولي نيسا قلبي جيبا نولي نيسا قلبي نولشي سنة ونولشي نبتا نولشي نبتا أول محايا لي هدي قلبي قول نولاده ونولشي حقيقي لكن قلبي هدو بختي هاي وبختي نمضى نبتا أول نولل كله جبت مضى لكن النبي قالوا لي صلوات ربي والسلام عليه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بنبي صلى الله عليه وسلم شركة وحاكو دحتر عدير أو صاصنة أو أفقلسة عدكاسي هدو هقاقو شركة واود هقاقي هدو حماضو شركة واود حماني وقلبك بنبي صلى الله عليه وسلم عليه قلبك أنا محاها هقاقشيون نولية إيمان كان نولية raashin ma nooleeyo cabitaan ma nooleeyo guri qurux badan oo dhigato ma nooleeyo xoolo accountiga kuugu jira ma nooleeyo ha dumar iyo caruur far badan oo yeelato ma nooleeyo qalbiga maxaa nooleeya al-iimaan billahi tabaaraka wa ta'ala wa taa'a taasa qalbiga nooleeya qalbigu hadduu noolaadana waa nolosha dhabta ah waana raaxada dhabta ah deganaanshaha dhabta ah waxa kale oo dhan wax weyn ma sababtu waxa weey bini aadamku wuxuu ka kooban yahay sidiisaba samayskiisu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb waa jidhka qaybna waa ruuxda waa nafta ku jirta qaybta jidhka bini aadamka ah waxay cuntaa oo dheefsataa oo ku nooshahay maxay ya cuntada cabitaanka hooyiga soo ha inta markay isla heshana waxoogaa damac baa qabanaya shahwa qabanaysa shahwadii meel ay ku gudatay rabtaa intaasi waa baahida jirka soo laakiin inta kaliya baahidaada haddaad intaa bas u shaqeysa ka war waxaad rabtaa oo waxaad cunto waxaad cabto guri aad degto xaasaad shahwo ku gudato inaad ilmo dhasho inta oo haddaad u nooshahay ka war adiga maxaad ku kala gadsadin xoolaha ya adiga xooluhu maxaad ku kala duwan xooluhu way cunaan way cabaan hooy iyo meel ay cadowgooda iyo dhaxanta iyo qorraxda ka galaan bay raadsadaan inta markay helaan kadibna shahwa qabatay shahwadii inay isku gutaan bay doonaan bal ilaahay kan kugu dhaariyay adiga xooluhu maxaad ku kala gadsadin marka intaaba haddaad u nooshahay soo adiga xooluhu isku mid mati saas daradeed baad fahmi kartaan rabbi inuu yidhi subxaan odhaahda uu yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila gaaladu waa xoolahoo kale bal waaba ka liitaan buu rabbi yidhi subxana watacaala soo dad badan oo muslimiinta maanta intaa uma noola taarget kale iyo ujeeddo kale nolosha kale yihiin maba jiraba waa ordayaa waa rafaadahayaa waa dhididayaa waa xamaalahayaa laakiin muxuu u nool yahay waa keliya waxaad cunto waxaad cabto guri aad degto xaasaad guursato ilma aad dhasho bas hor waxaasi hadaf ma ah qayb ka mida bini aadamka samayskiisa iyo dhismihiisii unbuu isku mashquuliyey qaybta ka muhiimsani waxay tahay waa ruuxda iyo nafta ruuxda kugu jirtaay baahi bay leedahay ayadaana jidhka ka muhiimsan inamaa anta insaanun biruuxi laa biljasad insaan waxaad ku tahay ruuxda ee jidhka kuma tihi inay ruuxda iyo naftu ka muhiimsan tahayna waxaad garani ruuxii oo jidhkiisii oo dhan dhammaystiran yahay baa halkan inoo yaalla wax ka maqani ma jiro xubin ka go-ay ma jiro halkanuu inoo yaalla waxaa la leeyahay aas carrada ka hoos mariyay xoolihiisii waa la dhaxlay xaaskiisii waa la guursaday wax qiimo hadda maaragtay loo yeelahayo ma uu jiro lama xisaabsanahayo
war maxaa ka maqan waa ka meeshuu yaallaaye ma gacan baa ka go'day mise far baa ka go'day mise indhihii iyo dhegihii buu waayay kulli waa ku wada yaallaan bal maxaa ka maqan maxaa xoolihiisii loo dhaxlay maxaa xaaskiisii loo qaatay maxaa loo cayn wareejiyo isaga wixii o dhan ba looga wareejiyey waxbaa meesha ka baxay muhim ah soo ma waxaa ka baxay ruuxdii baa ka baxay hadday ruuxdu joogto waa insaannimadiisu dhammaystiranta hadday ruuxdii tagto insaannimadii iyo xuquuqdii adduunyada iyo axkaamteedii ma jirto ruuxdani marka kugu jirtaay ee sirta ehe cajabta badan rabbigeen qur-aanka markuu kaga warramayey wayas'aluunaka cani iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila ma taqaanaa waxay ka samaysan tahay miyaad sheegi kartaan ruuxdu waxay ka samaysan tahay ya khubarada cilmi nafsiga iyo insaanka ajzaadiisa ku takhasusay waxba kama sheegi karaan naftaas rabbi baa subxaana wa tacaala wuxuu yihi nebigo waxay ku weydiinayaan ruuxda ee waxaad ku tidhaahdaad ugu gaabisaa ruuxdu waa amar ilaahay cilmigana wax badan ba laydinkama siinin carwakaasi bini aadamow wuxuu ku leeyahay satalayd baan samaynay dayaxa iyo waxaanu degaynaa xidigahaanu waayahan kusii soconnaa haye waxaanu samaynay gantaalo adduunka cidhif ka cidhif kala yani waxa way u kala gooshahay oo meeshaan doonaan garaaci karnaa haye combyutar baa la soo saaray oo caalamka cidhifkiisa adoo jooga baad xidhiirka saa doonta u samaynaysa caalamkii o dhan hal tuulo abuuba noqdayba oo magaalo keliyaba noqdayba haye waxaasoo dhan garanaya adigu waxaa ha isku mashquulinayna bal hal su-aaloo naftaada ku saabsan baa lagu weydiine ruuxdu maxay tahay ya ma ka jawaabi karaa kama jawaabi kara wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan wax yar baa layna waxan waa asraar ilaahay inoo faydayay allah baa kownkan dhigay maalin baa wax yar daah yar baa looga faydaya maalin combyutar baa loo fayday maalin idaacad baa loo fayday maalin maaragtay satellite iyo caalamka hawada sare in la degaa loo fayday maalin baa wax yar baa loo fayday markaasaa waxay u qaateen inay awoodooda ku keeneen war waxan waa asraar kownka fadhida wax ka xeel dheer baana kownka ku jira oo sir ah oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku talagalay inuu u faydo bini aadamka iyo wuxuu ku talagalay inuusan u faydin isugu jira markaas naftaa iyada ah oo cajabta badan baa waxay u baahan tahay cunto waxay u baahan tahay cabitaan waxay u baahan tahay nolol waxay u baahan tahay ilaalin waxay u baahan tahay hoy laakiin ma cuntadan iyo cabitaankana iyada la siiya maya iyada nolosheedu muxuu yahay waa tii haddaan ka hadlaynay aliimaan والطاعة الله سبحانه وتعالى إن الرميه يجيسك إلهي لغو هقاق سبحانه وتعالى تاسا إيادة دجية تاسا يكون راح يستسا تاسا يكون حسشا روح ذو هذي حسشنا شركوا وحسلين روح ذو هذي أو منتهى يوقاتي سنتهينا شركوا وحكستاء هاي السمدقية سنة قصة سكست هذي حولئية الدنيا لغوق عن قليوه ha ahaatee ilaahay subxaana wa tacaala uu iimaanka kaa qadiyo oo nolosha xaqiiqiga raaxada leh uusan wax kaa siinin haba yaraatee wax deganaanshaha iyo raaxo iyo xasilooni toona mana helaysa kadeed iyo rafaad iyo dhib ayaad dhamaysanaysa waxaad xoolo iyo adduunya haysataba waxba kuu tari maaya maxaa yeele qaybtii ugu muhiimsanayd oo qaybahaaga ka mid ahayd baadan damba ka gelin cuntadeeda sii oo dheefteeda sii oo noole markaasaad degaysaa oo raaxaysanaysaa haddaad safaraha ka qaado wallaahi inaysan ku dejin karin adduunyado dhan haddii gacanta lagaa gelin oodan ku xasilaynin oodan raaxada ka helaynin weligaa wax alla waxa yaallo oo dhan keligaa haddii lagugu wareejiyo madaxnimo hadday tahay xoolo hadday yihiin magac hadduu yahay haween hadday yihiin caruur hadday yihiin gaadiid hadduu yahay wax la labista hadduu yahay waxa kownka saaradoo dhan keligaa haddii lagugu wareejiyo iimaanna iyo islaamnimona lagaa qadiyo weligaa kuma dejin karaa laakiin hal mid haddaad hesho hal mid allah inuu iimaan run ah ku siiyo daacadiisa kugu hanuuniyo kitaabkiisa kugu hanuuniyo sunnadii iyo jidkii nebigiisa kugu hanuuniyo intaa hadduu ilaahay ku siiyo waxba kaama maqna wax badani kaama maqna wax saasa kaama maqna xoolo wax badani kaalama maqna adduunya wax badani kaalama maqna wax weyni kaama maqna arrintaana waxaa dareemi kara ceel nin galay baa laga waraystaaye
xaqiiqadeeda waxaa dareemi kara ninkii tijaabiye kullama allah aada usii dhawaatood iimaankaagu sii xoogaystaba raaxo waxaad dareemaysaa aadan weligaa dareemin kullama allah aada ka fogaato iimaankaagu u isdhimana waxaa kugu kordhaya murugta walbahaarka xasaraadka qoomamada fikirka deganaansho la-aanta raaxo la-aanta baa kugu siyaadaysa xoolo waxba ku anfixi maayo kuma tahay waxba kaama bedeli karaa saas wey allah subxaana wa tacaala qur-aanku inoogu tilmaama arrinta iyada man camila saalixan min dakarin aw unsa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun ruuxii camal saalixa sameeya isaga oo mu'min ah lab iyo dhadig midkuu dooniba ha ahaadee waxaanu noolaynaynaa buu rabbi ilahi subxaana wa tacaala nolol wanaagsan nolol dhab oo xaqiiqa ah maalinta qiyaamadana abaalgud camalkuu la yimid abaalgudka ugu fiican baan ka siinayna acmaashuu la yimid ka ugu fiican ayaa wax loogu miisaamaya bal u fiirsada adduunya xasilooni leh ibnu kasiir caleyhi raxmat ullahi markuu aayadda fasirayay wuxuu yidhi waxaa laga wadaa yani raaxadan aayaddu nolosha dayibkaa waxaa soo gelaya buu leeyahay alraaxatu min kulli wajhin shay kasta iyo wax walboo raaxo keeni kara ayaa laga wadaa buu leeyahay wuxuu yidhi culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waa risqi xalaala inuu ilaahay ku siiyo qaar waxay ku fasireen buu yihi maaragtay allah subxana wa tacaala inuu qanacsanaan ku siiyo qalbigaaga inuu deganaansho iyo xasilooniya qanacsanaan waxaad haysataba ilaahay kugu qanciyo qaar waxay ku fasireen meehe daaco ilaahay iyo iimaan inuu ilaahay ku siiyo wuxuu yidhi aayaddu intaasoo dhan waa soo wada gelaysa wa ficlan waa saas allah ruuxii intuu rumeeyo camal saalixa la yimaado camal saalixa maxaa la yidhaahdaa waa su-aal camal saalixa waxaa la yidhaahdaa waxa aada samaynayso in marka koobaad aada ilaahay dartii ula jeedo marka labaad oo dano kale aadan ka wadan dano kale kuguma jiraan magac ma doonaysid adduunye ma doonaysid xoolo kuma doonaysid ha lagu sheego ha lagu maqlo kuguma jirto allah baad wax kaga rabtaa bas marka labaad camalkan aada samaynayso inaad kaga dayatood nebi maxamed ku raacdo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa in rasuulka laga soo gaadhay jidkiisii uu yahay qur-aanku sheegay axaadiista nebigu sheegeen sidii nebigu inoo dhaxalsiiya uga tegay waa inaad u samayso jeebkaada aadan kala imaanin wadaad isagu jeebkiisa kala yimid aadan ka qaadanin ijtihaadaad iyo waxay ila tahay iyo waxaan arki jiray ayna meesha soo gelin waa inaad ku raacdo sidii nebigu u sameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa shardiga saddexaad laga dhigay mu'min inaad waxaa laazimo intaasiba wada hoos imaanayaan inaad cilmi iyo garashiyo aqoon wax ku salayso oo daacadan iyo camalkan aada samaynayso uu yahay waxaad baratay kitaab ilaahay ka baratay sunno nebi ka baratay axaadiisteeda akhriday qaabka loo samaynayo laguu sheegay oo lagu tusay leanna waxa weeyaan ma waafajin kartid sunnada nebiga sal alay waslam camalkaaga ilaa aada barato saas daraaddeed baan mar walba waxaan ku celcelinaynaa asal waxaa u ah ilaahay u dhowaanshaha aan u dhowaanayno cilmiba asal u ah faclam anahu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu cilmi bay ku salaysan tahay salaadu cilmi bay ku salaysan tahay soonku cilmi buu ku salaysan yahay sakadu cilmi bay ku salaysan tahay xajku cilmi buu ku salaysan yahay jihaadku waa in la cilmiyeeyo dacwada waa in la cilmiyeeyo nafaqada la bixinayo waa in la cilmiyeeyo shay walba waa in cilmi lagu saleeyo wailaa waxaagu wax ilaahay agtiisa waxtar lama noqonayo waa in wixii wax cilmi ku fadhiya oo cilmiyeysan inuu noqdaa la doonaya saa markaad yeesho allah subxaanahu wa tacaala shaki ma laha inuu ku siinayo noloshaa wanaagsan ee uu ballan qaaday noloshaa wanaagsani maxay tahay walaalayaal waxaan ka soo qaadayaa hal qodoba oo ah deganaanshaha qalbiga ilahay wuu ku dejinaya subxana wa tacaala qalbigaaga xasilooni buu siinaya nolol raaxale baad noolaanaysa xataa gacantaada waxa ku jira haba iska yaraadee laakiin nolol raaxale baad noolaanaysa waa nolosha iimaanka iyo daacada laga helo waa midda nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wajucilat quratu cayni fi salaa yacni adduunyadiina waxaa layga jeclaysiiyey buu nabi yuri sal lay slam waxyaalaha ududgoon cadarka iyo waxa udgoon baa lay jeclaysiiyey iyo dumarka
ilqabowsigaygiiyo raaxadaydana waxaa la yeelay salaada dhexdeeda buu nabigu sallallahu alayhi wasallam shayga aan ku raaxaysto markaan galo waa salaada soonkaan ku raaxaystaa xajkaan ku raaxaystaa ilaahay markaad ishortaagto subxaanahu wa tacaala oo aad allahu akbar tidhaahdo haddii qalbigaaga allaha keligii uu ku jiro ku wan yahay wax alla wixii murug iyo walbahaarahe dhow aad halmaamaysaa waxaad gelaysaa caalam furan raaxo aan dhammaad lahayn macaan aan dhammaad lahayn oo cunto iyo cabitaan oo dhan kaaga macaan baad gelaysaa laakiin noloshaa miyaynu haysanaa iyo raaxada weli ma dhadhamiseen ya weli ma dhadhamiseen mise waxa weeyaan kadeed bay inugu tahayoo yani 4 ragcadood inta loo taagan yahay waaba dhib inugu ah iimaanku dhadhan buu leeyahay oo macaan buu leeyahay sida nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh salaasun man kunna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan 3 arrimood ruuxii dhexdiisa laga helo ay ahaadaan iimaanka macaankiisu helaa buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh 3 arrimood maxay yihiin 3 arrimood kow waxa weeyaan an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma allah iyo rasuulkiisu waa inay noqdaan kuwa uu ka jecel yahay wax kaloo dhan xoolahaaga waa inaad ka jeceshahay xaaskaaga waa inaad ka jeceshahay caruurtaada waa inaad ka jeceshahay naftaada waa inaad ka jeceshahay allah iyo rasuulkiisu waa inay kaala weynaadaan ood ka jeclaato wixii labadooda ka soo haray waa mid taama laynagu hayaa ya taama haysaan taa haddaadan haynin waa waxa iimaanku kugu dhadhami lahay ood macaankiisii u gaadhi lahaday talabaadi wuxuu nabigu yidhi sal alay wasalam وأن يحب المرء لا يحبه لله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وإن الروح تشعلان إلهي درته تشعلان سجي خلقك وحى حريرية ألا درته سبحانه وتعالى أما قبيل السقوم حلو دقمان كوضع لنا السقوم حلنا حزبي بان وضعنا السقوم حلنا مذب بان وضعنا السقوم حلنا وان وضع لنا السقوم حلنا ضدك وحو كحريرية الله درته سبحانه وتعالى الله درتيبه wax ku siiya alla dartiibu ugu diidaa alla dartiibu ku soo dhaweeyaa alla dartiibu ku fogeeyaa alla dartiibu ku xiriiriyaa xiriirka isaga iyo dadku ka dhaxayaan waa allah dartiibu ma hayna mid ayadana ya warta ma haysan xagaynu ka hayna Soomaali baynu nahay reer baynu nahay ya reer hebel iyo degme hebel iyo soo ma qaysan sabay salaadii marka daacadii ugu dhadhamay macaankiisaan ku helaynaa waa macaanka inaga maqan raaxada alla dhahay raaxada alla dhahay waxa weeyaan xiriirka inaga dhaxeeya wuxuu ku salaysan yahay wax kale alla dartii kuma salaysan iimaaniga islaamnimo kuma salaysan wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah qodobka saddexaad rasuulkeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa an yakraha an ya'uuda fi al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam inuu u karahaysto weeye gaalnimada iyo mabaadi'da kufriga waa inuu u naco sida uu u nacab yahay in dab holcaya lagu rido dab holcaya oo yaani waxa weeye kulki meesha ugu dambeysay joog in lagu rido masaasha ya soo aad uma nacbid waxa ka nacabtay sida dabka in lagu rido u nacab tahay si leeg waa inaad u nacdo gaalada iyo kufriga iyo mabaadi'diisa miyaynu haynaa midana ya وسينو هنا وينو كلا دومانينا يا وانو كلا دومانين dhulkoodii baynu jecel lahay deegaankoodii baynu jecel lahay luqadoodii baynu jecel lahay la saaxiibidoodaaynu jecel lahay waynu isku faanaynaaba inaan xiriir la leenahay inay macnaha waxa weeyaan inoo taliyaan oo ina xukumaan oo qorshaha inoo dejiyaan oo nidaamka xaggooda ka yimid ee dimuqraadiyada ay inoogu tilmaameen inaan qaadanaan jecel lahay oo ninba ninku gaal uga dhow yahay waaba ka qiimo badan yahay saasaynu rumaysanahay soo dad badan baa rumaysan saas daraadeed baad arkaysaan madaxdeennii say ugu kala dhuumanahayaan oka inaguna geel hebel kuwa daba yaalaanu daba naallaa bay dhaheen Soomaalidu kuwa baynu inaguna sii daba naallaa kuwaanu sii daba naallaa haddii gaalnimada marka la nici lahaa kufriga iyo bilaadiisa iyo afkaartiisa iyo mabaadi'diisa haddaad u nici lahaydeen sidaad u nicibtiin in dab laydinku rido wallaahi baan ku dhaartay ilaahay daacadiisa waa idin dhadhami lahay raaxaadna u bixi lahaydeen qalbigaa idin degi lahaa waxaad heli lahaydeen wax hadda aydaan fahmi karaynin oo fikirkiina xataa aan kusoo dhici karin laakiin waa shuruuddaasaa ku xidhan ma laynaga helayaa wey
shuruudda saaku xidhan ma laynaga slay wayn faadino ala aqal taqdiir hadayna hayno waa inaan u gal saci u galo wala la yal warka murtidiisa waxa weey nolosha dhabta ah waa nolosha iimaanka iyo islaamnimada weey raaxadu waa raaxada iimaanku uu keeno weey ku xidhnaanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala xasiloonida ka dhalata weey amma adduunyada iyo waxyaabaheeda iyo xoolaheeda iyo raaxadeeda iyo dhaldhalaalkeedu isagu raaxa ma keeno nin haystana kuma degana bal u fiirsada ilaahay baan ku dhaariyay markaynu raadinaynana dhib badan baan u maraynaa khatar baan nafteena gelinayna intaasaan u dhididaynaa haddaynu keennana oo gacanteena ay soo gashana ma nasnin waxaynu u taagannahay intaa xisaabinteeda isku dar ka go maanta maxaad faa'iiday kalkulatorka xafiiska waraaqaha kombiyuutarka maba nasnaba ragga waxa ugu kadeed badan oo ugu rafaad badan ninba ninku ka xoolo badan ma been baa mid warun ya faqiir hada tahay aroorti markii aad cashaha ka baxdaba gurigaaga aad tagto waxba ma haysatide hada waxa weeyaan sariirta iska tagay waad iska seexan soo saas ma laakiin odaygan kada xafiiski maanta maxaad halmaantay bangiga maxaa ku jira بريت محاشقو كوتالا دايري بوغي صوبحي بالفيري كو لبا واك كوليتركي شقو مسينو iyo xaslooni ma kaaga daranka waxa weey xaqu fiirinaya wuxuu leeyahay tolow maxaa dhici doona tolow goormay ku dhaafi doona tolow ma lagu soo dhici doona wax ka fulaysan nin xoolo leh ha tolow caawimiyay tuugtu ku soo gali doontaa talow ma nidaamkan iyo dawladana isbedeli doonto nidaam kale saabas imaan doonaba talow xaalkaagu muxuu noqon doonaa fikri iyo walbahaar buu dhamaystay ya adiga laakiin waxoogaa nolol maalmeedkaaga iska haysta waad seexan waad soo toosi waad cibaadaysan waad nasan tahay khalaas jid cad baaba haysataaba walbahaar iyo dhibba kuma hayo kaasi waa kii gacantiisa ay ku jirto ma nastay mise ma nasanin ya ma nasanin muxuu nasan waaye ilaahay baan ku talagelin subxaana wa tacaala فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون بالله سبحانه وتعالى وحبا حوله دي عرور توديين كعشب قليل ألا وحو دونيا حوله دائية وحا أي هيستان إنو أدونك كعذابه حوله باب عذاب لك قد قيا حوله دي باب عذابي كدبنا إني النفط كبح ضعيقو قالا خساري ugu weynaana marka ay hoydaan xoolihi baa isku cadaabay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ciqaab ka dhigay samarta walaal saas daradeed baa nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ataa falfiri hadithka muslim soo saaray min hadith abdullah ibn amr ibn aas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa liibaanay ruux ilaahay islaamnimadiisa liibaanta kow ka dhameeta hor iimaan iyo islaamnimo ilaahay siiyay kadibna adduunyada kaga irsaaqay waxoogaa ku filan ilaa haday ka badato aakhiradaadii iyo muhiimadii lagugu talagalay bay ku seejinaysaa ka mashquulinaysaa waxoogaa ku filan bini aadanka baryadiisa uu kaga kaaftoomo ilaahay siiyay inta markuu siiyayna ilaahay ku qanciyay oo iimaan ku qabo ku degan saddexda arimood ruuxi ilaahay isugu daro nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa liibaanay saddexda adduunyada ka raadiya ka badan hadaad ka doontaana dhib un baad raadsateen oo lugihiina ku doonateen وصدحله إيمانية إسلامية دميستيران إلهي باعدي talabaad waxoogaa kugu filan oo bini aadanka baryadiisa kaga kaafsan tasaddexaad inta inaad ku qanacsantood iimaan ku qabto inta ilaahay tiisi kaaga iimaanay ilaa wax way sida nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam يعني إنما ليس الغنى من كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس بالنبي صلى الله عليه وسلم معها هذا النمذا يدجنان شها قلبي معها حول بدن معها الدنيا بدن معها لكن يعني وغناها إيه هذا النمذا يدجنان شو وإن إلهي أوكسيو قناع سنان إن إلهي قلبي قناع سنان كليه إيماني إسلامي أوكسيو وحوجا غيرك إلهي سبحانه وتعالى تصف إلا ندب بابا جاه شعر كون حديثك ابن ماجه soo saaray rasuulkeenu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii murugtiisa walbahaarkiisa adduunyo ka wada dhiga saddex arrimood buu ilaahay subhanahu wa ta'ala abaal uga dhiga ninkii murugtiisa aakhira isugu geeyana saddex arrimood buu ilaahay abaal gud uga dhiga subhanahu wa ta'ala bal fiirsad ninkii murugtiisa walbahaarkiisa adduunyo isugu geeya rabbi saddex arrimood buu abaal uga dhiga ta koobaadi waxa weeyaan
أرميه سالك كلا دادية فرق الله عليه أمره إلهي أرميه سواك كلا دادية طلبادي وحوي وجعل فقره بين عينيه باهدة إيا قاشدة إيا نوحا لغا سارا لبدا إندو دحدود قلبي يسمر والبواباهين ورحولها فرها بدن سومالي ورلبدا بقول بابور سوادوك ملي ورحولها الأكونت يكوشي سوادوك ملي وروحنا وقرياء سوادوك ملي وقاشيسين قاشو طوالي وحي لهذا قاشدو ضدك قارنا إيادا أركسا قارنا إيادا أركسا يا ما إنك أركتا درن مثلنا وضو أرك يا كدرن إنا وضو أركتا درن يا إني أضو يدو إنك أركتا رون لكن هذا أضو أركتون أجاشون أيكون موقته ولقى دقمت الله سبحانه وتعالى مركز يليه فقرك إيا باهيدا بولبدا إن ضحدو ذاك صاري قلبي جيس دقنا شو مال ساعتها هدانا ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له الدنيا ذا أوصاء النقضينا انتي الله قري وحكا بدن كهلي ماي وحي هري الله قري كباب بدن حداد قالوا ذو الدنيا كفر ذو وقتك أقولنا كبعيسو هبينك يردن أتكفي كرتو انتي إلهي كو حريقي ولا إن هذا امتانت لا فين waxba isdhibin marka ya ninkii aakhara wal baharkiisa ka dhiga war maxaa aakhara ku yaal maxaa shaqaysatay maxaa iimaana maxaa amal saalixa ninkii murugtiisa aakhara ka dhigana saddex arimood buu Ilaahay siyaa subhanahu wa ta'ala kow waxa ah arrimihiisa Ilaahay baa u ururiyay isugu hagaajiya harkaha loo xidhxidhaa waa loo kaalmay talabaad waja'ala ghinahu fi qalbihi qalbigana hodantinimada deganaansha Ilaahay u galiya subhanahu wa ta'ala تصدحات وأتته الدنيا وهي الراغمة بنبي صلى الله عليه وسلم عليه الدنيا وحي اللوغة قرينا أيضا سنك كطلا أم برياء هين بأيو إمام بنبي صلى الله عليه وسلم عليه يا بل بلا شيد ولا اللي يلو في الصدر وشيد استقعنا وضا قضح إيا الرفاض إيا قاشو إيا الرفاض إيا شيد دقناشو راحو حسنونية كلا دورتا مركز كلا دورتا وحن كسو قبقبين يعني وحوي كلمة ده وانكسو أرورنا يعني khiyaarkeena doorashadeena walaalayaal han noqdo inaynu diinteena aad uga murugno iimaankii inaynu ka murugno aakhiradeena inaynu ka walbahaaro fikirkeena inuu xagga u bato maxaa yeelay raasamaalku waa diinta ninkii diintiisa dayacayna waa khasaaray adduunyana waxba ku tarimayso rabbigeen quraanka wuxuu inagu yiri yaa ayuha an-naas qad jaa'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa maw'idatun للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وارضضوا وحائدين تمدوانوا حق الربكين بإذن كتم داوى إذن من قلبي يدين الداوين يا حق الربك إذن كتم نحريس يا هنون مؤمنين تياؤدين مؤمنين تأوى حق إلهي بكتم مدى حق إلهي كتمد قل بفضل الله فضلك إلهي إديمد وبرحمته النحريس تيسا فليفرحوها كفر حين برب سبحانه وتعالى هو خير استقع كخير بدن مما يجمعون وحي أرورنا إياه معه كخير بدن هاي وحن أرورنا الدنيا دان طبعين وحن إنه كله قصنا معها كخير بدن هنونك حق إلهي كي نحريس حق إلهي كتم شفاها إيا داودا القرآن كإيا السنة النبي الله إنوك كان يبقى كخير بدن تاكو فرح برب الله سبحانه وتعالى وإذن كأركي شلمات مالين كتفائدان فرح ذا لك شوقي صومة فرح مالين حوقان سوى يعني واحد صومة عاشو فرح بوسن لك شوقي وارتاس واحد لقو فرحمي واحد لقو فرحة آيات قرآن مالين كتبرات تاسا فرح لك صلاة إلهي مركو كوافتشيو تكتو أيال فرحة مركاد إلهي أو كوافتشيو إناد مجلس علمي فريسطو وقتي كو قادة تالا فرحة صون مركو إلهي كوافتشيو يالا فرحة دينت إلهي سبحانه وتعالى إيمانك مركز كبعسه فليفرحوا تاها كفر حين برب الله سبحانه وتعالى أيضا مضان إنه كفر أما وحنا أرورين إنسانا كمش كل سنتين تاسيد وحويان فرح تاسا ممنا ولا لي المركة إنه دينت إنه كده داله تن واميدا إنه كتجينه سو حقيقة ما إنه كتجينه ما شكله إنه كتير شكله إنه كتير كتجينه هاي الشلة بي ولا عليهم كتجين أو أيو يمكن يأويدن كتجين أو أبياشن كتجين إنه هو إنه كتجين
laakiin maxaa kaa dambeeyey maxaa qabriga kugu sugayey maxaa nolosha dambe ee qiyaamo kaaga horreeyey middaa weeye midda xaqiiqiga waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaanu law kaanuu yaclamuuna bu alla yidhi subxana watacala daarta iyo degmada aakharo ayaa waxay tahay nolosha dhabta ah hadday og yihiin buu rabbi yidhi subxana watacala nolosha dhabta waa midda aakharo middani laakiin waa dhayal waa ciyaar inama alxayaatu dunya lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaasurun fi lamwaali waalawlaad kamasali gayfin acjaba alkufaara nabaatuhu uma yahiiju fataraahu musfara ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وألا بيرسوك السنتي وعيا عيار ووحل قضاء عرضت يركا سمين أنا مالنكي صباح دي مركي بحان وقريها كبحان ويبنانك أو بحان وحي سميستان وحيالا يكو عياران كضاهان وقتك اسكو رافيان سمين أنا هقريه لسه هيان حوالي سبع هيان يعني وحوي قبل يرير إيو ويل الإسقابي سمين هيان يعني وحوي عرور بالله هيا الدنيا طبعا ماشي أكو سمين هيا لكن مركي قرحه كلها تو برقن كيل لقارو وحي حاجة كده بي يا سو كمان إيمانين وكمان سو هو يني تبتهو وحني ووحى بولا الخير يركين تسلسينه إيو معناها قريها ويلش يا قبلها أن يسجل إستثار إنه يعني برقن كيف كان غاقد والله لعب ولهو برب كتبنا سبحانه وتعالى فاني السفاني انا كاح على بدني انا كاعرف بدني وحوغا قرقرخي دلدلالي انت سو بريت laga tagi doono marka ruuxa aqliga leh garashada leh waxa weey sida ruuxi u fahmo oo muhiimada ka abara nolosha xaqiiqiga raadiya adduunyadana anfacaysa aakhira iyo maalinta qiyaamada idin anfici doonta insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna inuu nagu anfaco wixii gafana Allah subhanahu wa ta'ala uu noo dhaafo wixii sawaabana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir naga siiyo إن قلنا أنفع كلمة يدا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله السلام عليكم. سعيد ظهور يا ولي هاي ويل مهر لقولي هاي أو عن وحبها يسان دينكم حيث قبطها. الله سبحانه وتعالى وفي القرآن كويس وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ضمك مهر كورسية أيضا استثماء فوحي إله سبحانه وتعالى الله أقر شيء واحد أضوه كنت تفضلي فما تفضل ما حولا لقول لي هيو ساس دراد سيدا أقول نقصها بدنا يسكيو دي كرتان وين يسكيو جدان مهر كبه Soomaaliya hadaynu la khaladkaynu qabno waxa kamid ah caadada inuu dhinto mooyaan inuu san meherba bixinba ama waxaad moodaysaan in saa uu ku dhamaanayo leedinka saamaxay haweenay fiican oo idinka saamaxdo oo Ilaahay inuu idin bixiyo mooyee wala in maalinta qiyaamada qoorta leedin qabanayo waxaan deyn waay xoolo bini aadan way xaq bini aadan hadday iyagu idin siiyaan qaata baa Rabbi subhanahu wa ta'ala فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هذا يجو إذن سيان عنا قاتا وإذن بنان أما هدي كاليتو سي دين هدات كل متنا سيد النبي كسب صلوات ربي وسلام عليه عمل كاجا أشر كيسي ونبا لقا علقيا إلى دين تلبحي ودين تمهير كامل قبلها مركز دين تأهر مريء وحنا لا مهير كأهر مريء وهدات ميشا كل دي كرتين ميشا كل دي تنبع markaad mehertisaba inaad ka sii saafiix oo ina kugu yeelan haday kugu yeelato deyn kugu noqoto waa inaad ku dadaasho saad saga bixin hadaad faqiirto waxba aadan haysanin dadaal Allah subhanahu wa ta'ala ruuxi dadaala dabna ay ka tahay rabbi subhanahu wa ta'ala waa ka gudayaan walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin hakranino adiga hagarbax markaad wixii tabartaada bixiso ilaahay waa ku kalmeynaya subhanahu wa ta'ala wabillahi tawfiq سائلكم لما دوحوا ليهي ما جرى آيات أما حديث tilmaamaya jinka mu'minka inuu jannada geli حاجتين كيدين بالصديق هذا ما قال لي شنكو جنده ما قاليا آيات tilmaamaysa سورة الرحمن آياتها ku soo arooray ayaa loo dalishadaa maxay yeelay suuradu fa bi ayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan
jinka iyo insiga baa laga soo hadlayay markaasaa waxaa la yidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan marka inay jannada gelayaan mu'miniinta jinku ayaa loo daliishadaa saasaana sawaab ah saasaa sawaab ah mu'miniinta jinku inay jannada gelayaan gaaladooduna inay gaalada bini aadamka la meel gelayaan oo naarta wada gelayaan wabillahi tawfiiq saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhow haddii qof uu yacni dagaal ii soo aado oo doonaya inuu nafta iga jaro marka anna aan kala hormaro sharcigu muxuu ka qaba oo anigu aan ka jaro macnaha horta nafta bini aadamka dilkeedu wax sahlan maaha marka koobaad ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado hal gaal baa la ogolyahay in la dilo waa gaalka dagaalku idinka dhexeeyo xataa gaalada kale ballantu idinka dhexayso inaad dishaan lama ogolo nabigeena wuxuu yidhi sal alay wasalam ninkii gaal dila ballan muslimiinta kula jira maalinta qiyaamada jannada urkeeda ma hela buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh muslimka dilkiisana waaba ka sixad jiraan oo aayadda rabbi waa ku tilmaamay subxaana wa tacaala waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaؤuhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima bal inta laysu daba dhigo firsado ruux mu'mina ruuxii kas u dila abaalkiisu waa jahannama wuu ku waari ilaahay baa u cadhooday waa la lacnaday cadaab weynna wuu u diyaariyey xadiis nabigeena ka suganna wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala cid kasta towbadiisa waa aqbalaa ruux shirki ku dhintay ama naf macsuuma intuu dila dhintay mooye inta kaloo dhan ilaahay towbadooda waa aqbalaa subxana wa tacaala yani dembi dhaafka waa u dembi dhaafaa marka ma sahlana masalo sahlan maaha waxaa timid haddii lagu soo weeraro waan kala qaadaynaa iyada lafteeda hadday fitno tahay oo xilli fitna ay taagan tahay ay tahay sida soomaaliya hadda dagaaladan iyo qabaa-ishan iyo waxaan isku duulay ee islaynay xilli noocaas iyo meel noocaas oo kale haddaad joogto waxaa fiican in aadan isdifaacin oo lagu dilo nabigu sal alay wasalam wuxuu la dardaarmay abudar iyo saxaabada wuxuu la dardaarmay fitnadu markay dhacdo oo muslimiintu seefta isu qaataan kun ka khayra bnay aadam buu nabigu sal alay wasalam aadan labadii wiile uu dhalay midkoodii khayr ka badnaa noqo hal lagu dilo bedelkaad wax dili lahayd buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu calayh xataa wax haddaad ka cabsato buu nabigu sal alay wasalam seefta xataa maaragtay biliqbiliqdeedii iyo iftiinkeeda inuu ku dhibo haddaad ka cabsato xataa isku dad buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu calayh forso ha ku dilo isaguna naartuu aadi adiguna jannadaad aadi waa xilliga fitnooyinku taagan yihiin saasaa fiican haddii aadan waxaa ku dhex jirin shaqana aadan ku lahayn laguna og yahay gurigaagaad iska joogtaa kama qayb qaadatid waa lagu soo doontay waa lagaa gardaran yahay dulmigaana kuma dhex jirtid waad isdifaaci kartaa waa miduu nabigu leeyahy salawatu rabbi wasalaamu caleyh man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid buu nabi sal alay slam ninkii la dilo isagoo naftiisa difaacay xoolihiisa difaacanay reerkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa difaacaya ruuxii la dilo jannadu aadayaa buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh waa shahiid marka xaaladaa iyada ah way kuu bannaan tahay saa'il wey waad iska celin karta maxaa fiican ma inaad isdhiibtaa fiican ma inaad dishaa fiican ood iska celiso laakiin waxaa shardi oo laga maarmaan ah haddii uu kaaga joogi karo inaad iska riixdo waa inaadan dil ku bilaabin kolba xaaladda aad iskugu hor istaagi karto ta ugu fudud waa inaad qaadato xoogaa haddii uu feedh kaaga istaagi karo mindiha gelini mindi hadduu kaaga istaagi karana xabad ha ku dhufan xabadii haddaad lugta jabin karto oo uu dhici karana madaxa ha kaga dhufan saasaa la doonayaa ilaan muhimaddu ma aha in ruuxa la dilo muhimaddu maxay tahay sharkiisa inaad iska celiso sooma sida ugu fudud ee marka uu kaaga ceshami karo waad samayn kartaa waadna isticmaali kartaa axaadiista nabigaana laga fahmaya bal ku cado macnaha kutusaysa wabillahi tawfiiq fadlan qof aan muslim ahayn oo lacag loo ururinayo wax ma ku darsan karaa se sadaqa ma ii noqon kartaa
ما سيدة في عن مثل ما بنانته الله بيكلم ما بنانته هذه سيرة هذا بنانته ما بنانته هذه هاي وبنانته أشر نواتكه رسول كان نوح صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة صدقة مثل أجر beer kasta oo qoyan wixii la geliyo la siiyay ajir baa ku jira buu nabiga sallallahu alayhi wasallam oo hadii eygii diintiisiiba ay janno lagu galay gabadhii zaaniyada soo garanaysaan ee ceelka intay u gashay eyga oo ma warabis ee ilaahay ugu shukriyo jannada ku geeyay soo garanaysaan eyga iyo doofaarka iyo xayawaanaadka iyo insaanku waa ka sii xaq jira حتى هذو قال هي واقف يحكي سما فلك الله قال إحسانك الله قال أجر ولا جهلي ففي قطع أما محافظ بدن هذا ويجي جوابته وحويان ولا يأكل طعامك إلا تقي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه عنتدى هذا يوسن عن روح أن تقي أهين حتى مؤمنين تبع فيك على دوري ولا يري من ضمنك كسي تقوى عبادة بدنيا هاي عنتدى هذا استثمار هذا هو بس فهو حكى أجر بس هذا الشيء أما ما يبان أنت أجر مكيله ياها عد كستو وح كستو نول أو نولا أو وحسيسو أجر وكيل إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. سائلكم كلو بدأ يا شيخ وهدان قبحه سبونسر USA العكس عن صور شقة يستمكوا حكين كرا. هدي هذا ولي صور شقة يستنشوك هذا ولي آذن هتجن لو أقلا عيل بدل كات كهلي صار العكس عن صور شقة يستندون جوبت كان جوبي دور أنت كهلي وحاكوه الرئيس إنا ترى هذا ما يبنى أنت شيخ USA إنا نعم سو كم هو الرئيس لكن صومالي بيننا هاي ما أنت سؤال إنه ما تعلم صوما شيخ وما هذا ما هذه كرام ماشي إنه مج لكن محمد ماشي إنه وصفته العكس عن كهل الشيخ وما بنانت أدب سوي دينك مركها آدم هذا آدم هذا آدم صور شقيسه العكس هذا الشيخ كانوا كتشرته ما كو حد شنكرته ماشي هتكشف قيسه يكون حرد والضفار باكي كان من خمرة كشقيس مسواد خيان ضيو قال له أنت كتب أنت بين أوشيكتي ووحي سوالي كل رقم كتير بين تفرح بنا أنت بسجل جلسي بعد ساكو خيان هذا مال حنا شريعته أين الأوجلين كسر شقيسي لما أوجل وحرام إن تكحت شيء سكوا ضعف حتى ما عنك مال لما تيجي هدي آد مال حلال كسر شقيسود حمالتي أذن خيانة يبين آذن مرين في عد أتوش قيستي واحد ماشى أتكش قيستين مال شريعة وقشها أي سهي هذا مركز حلال وحلال وكحشين كرتا وضعني كرتا وصدق قيستين كرتا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. سائل سنقول لي إيش شيء وفي عن الرب أن أقول دوانكم. نبي نوح الويدي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل عمل السماء محا أقف فضل بدن وأقف عنه إيمان بالله برسول كل صلى الله عليه وسلم الله أول الرمي إيمان كأجئنا تكون اسمه ما حكوا حجوا للنبي قال الله وصرع جهاد في سبيل الله بنبي صلى الله عليه وسلم عليه شدك الله له جهاد ما حكوا حجوا للنبي الله حج مبرور بنبي صلى الله عليه وسلم عليه حج لو بارد المسلمين وشريعة النوافذ مركب محا أقول في عنادات هذا وحي إله اللي هو هذا إيمان واجبات كشريعة إن الجدة الصلاة وجوه الرئيسه يعني واجبات كصوم كهذه لغوية شحورها كذا كبد حس حج كإنك سوق جدته أعماش الدين إله أوش قيسه أعماش إله كوده وين سبحانه وتعالى وتعالى وبالله التوفيق. سائلنا نقول لي هدي قال هذا حرير ونقد حي الشقاء وروح نصد مصاب وعنكر هدوس الدين تعتدي سمك غير جلسنا مصاب وعنكر جواب سيد وحويان ها بل إن الصواب وقتافي عنه وليبا iska soo booqasho ma aha inaad u soo booqato inaad iimaanka u bandhigto oo islaamnimada u bandhigto oo isku daydo inaad cadaab ka badbaadiso naftaadii socod rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wiil yado yahuudiya u shaqayn jiray wiil yaro yahuudiya baa u khidmayn jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wiilkii yaraa yahuudiga baa xanuunsaday nabigu uu maqlay wiilkii inuu xanuunsan yahay booqasho ugu tagay nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasaa nabigu markuu u tagay wiilkii oo naftu hayso wuxuu ku yiri allah rumee qul aamantu billah qul la ilaha illa allah ku yiri la ilaha illa allah
wiilkii yaraa aabbihii ag fadhiyey buu fiiriyey waa wiil yar aabbihii buu fiiriyey bal inuu u ogol yahay in kale markaasaa aabbihii wuxuu yidhi atic abalqaasim buu yeel abulqaasim warkiisa buu wiilkii yaraa markaasu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam alxamdu lilahi aladii anqadanii bihi min annaar alxamdu lilahi aladii anqadahu bii min annaar waxaa mahad iskale allaha sabab iiga dhigay inuu naarta ka badbaado u fiirso waa wakti aada u yar sooma laa ilaaha ila allah waa noloshiisa meeshii ugu dambaysay intaasuu ku dhintay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay inuu naar ka badbaado ujeedadu marka maxay tahay nebigu wiilka yaraa yahuudigaa waa booqday waad booqan kartaa marka laakiin mid ha halmaamin intaad booqatona iska soo noqonine u bandhig islaamnimada khayrka u bandhig tawxiidka u bandhig ilaahay waxaa laga yaabaa inuu qalbigiisa soo leexiyo sabab kaaga dhigo inuu janno galo yaa dhici kara ayib amaa tacsiyadiisa ma laga qaybgeli karaa mas'aladaas taqriiban waxay u baahan tahay fiiro gooni in lagu fiiriyo qur-aanka waxaa ku soo arooray rabbi subxaana wa tacala nabigiisa uu ku yidhi markuu ka hadlayay munaafiqiinta walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi maxaa lagu cileeyey inahum kafaruu billahi wabirasuulihi warasuulih wamaatuu hum kaafiruun sooma allah iyo rasuulkiisay beeniyeen ku kufriyeen iyagoo gaalo ana way dhinteen qubuurtooda ha tegin ha ka qaybgelin baa nabiga yihi salawatu rabbi waslamu caleyh haddii wax kaloo aasan la waayo waad soo aasi kartaa sida nebiguba sal alay wasalam adeerkii abu aalib markuu dhintay uu cali bni abi aalib intuu u diray uu u yidhi kac adeerkaagii gaalka ahaa waa dhintay soo aas buu ku yidhi nebigu sal alay wasalam marka aas wax kaloo aasa haddii la waayo waa la soo aasi karaa ama tacsiyada ma laga qaybgeli karaa waa mas'ale ay culimada qaarkood diidan yihiin nusuustaasaana loo daliishanayaa inaan la tegi karin khaasatan maantoon joognay xilligan iyo waddankan aan joognay waddamada gaalada tacsiyada gaalada marka la dhigayo shirkiyaad iyo gaalnimo fara badan bay sameeyaan soo saas maa adigii meeshii haddaad tagto dhuquustii iyo wixii la sameynayay gaalnimadii inaad ka qayb kasto oad ku qabsato haddaadan ka qayb gelinna meesha inaad taagnaato waidaa ra'ayta ladi maxay aayaddi qur-aanka yacni markaad aragto ilaahay aayaadkiisaoo lagu kufrinayo ha joogin baa lagu yihi meesha soo ma meel shirki iyo gaalnimo ka dhacaysa haddaad iska taagnaato ma soconaysa maya ka tag haddaad waxba ka qaban karaysa marka qaybgalka yani waxa weeyaan ma haboono ma fiicno amaa booqashada marka uu xanuunsanaya in la booqdaay way yani bannaan tahay sida xadiiskaas kutusaya bilahi tawfiiq masaa-ilkani wuxuu leeyahay waxaan u shaqo tagaa kombyuutarka ciyaalku ay ku ciyaaraan lacagna aan ka soo qaataa markaa ma ii bannaan tahay muxuu yahay maba garanayo kombyuutarka ciyaalku ciyaaraan gameka miya gameka ciyaar xoola laga qaadani ma jirto ciyaar xoola lagu qaato o dhan waa xaraam maxaa yeelay waktiga bini aadamka in la dilo ma aha nabigu wuxu uhi sal lay slam min xusni islaami ilmar-i tarkuhu maa laa yacni ruuxa islaamnimo wanaagiisa waxaa ka mid a waxaan faa-iida ku jirin inuu isaga tago ciyaar iyo tartamo wax lagu qaadan karo islaamku wuxuu uun jideeyey laa sabqa buu nabi uri sal lay slam ilaa fii naslin aw xaafirin 3 mise 4 macnaheedu waxa weeyaan wax lagu qaato ciyaar ah tartan ah ma jiro ilaa inuu yahay fardaha tartankooda kale iyo geela tartankooda iyo toogdhisadka toogta marka macnaha la baranayo shiishka marka la baranayo isagana sababta waxa weeyaan intuba maqaasid aan ciyaar ahayn baa ku jirta shiishku muxuu u khidmaynayaa jihaadku u khidmaynaya sooma ayib farduhuna waxay u khidmaynayeen iyo geelu iyaguna waa tiknikadii lagu dagaalamayo kuwa way kuwa marka waxa weeye tartankoodii iyo ciyaartoodii wax lagu kala qaadan karo ama ciyaarahan banooniga iyo baashantaata usha aad ku gujisaan maxaa la dhaha iyada ya buug miyaa lamisa buul taa iyo shaxda iyo baashan jarta la yidhaahda iyo dubladda iyo yani waxaasoo dhan waxa lagu kala qaadanayo waa khamaar maysir wax banaana maaha shareecada islamka ma ogola wabillahi tawfiiq saa-ilkani wuxuu leeyahay waxaan taageeraa
ciyaaraha kubadda cagta ee UK markaa dambi meega soo gaadhay? jawaabteedu waxa weeyaan idinka muuqata inay khaldan tahay masalada sooma waa wax khaldan oo maxaad UK iyo macnaha waxa weeye aad USA ka kala taageeri waa laba gaal ya waxaan macno lahayn oo boodboodahay oo gaalo isqaawisay ya oo harag xun caydhsanahay harag xun ilaahay baan isku dheeriyey in aadankaaga dhanaaya karaamada laay ilaahay muhiimadda kuu abuuray ee qiimaha kuu yeelay ee muslimka kaa dhigay iimaanka kaa dhigay harag xun haddaad gaalo daba ordayso qaaqaawanaad shaqo ka dhigatay horta soo qiimahaagu meel xun ma yaal waxaad qiimo alle ma lihid balwaddu meeshaa inay kaa gashana aad bay u liidataa meel badan bay balwaddu gashaa laakiin balwaddu meelay kaa gasho meelahaasaa uga marka talabaadee meesha ku jirtaay waxa weeyaan walaha aad siinaysiiyo jacaylka aad siinaysaay iimaankaagiiyo islaamnimadii dib u khatar gelinaya ruuxu dadka uu jecel yahay nebiga sal lay slam baa la weydiiyey rasuul allah waxaa la yidhi nin baa dad jecel laakiin waxay samaynayaan aan samayn karin oon gaadhi karin ka war almar'u maca man axabba yowma alqiyaamati buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh ruuxu dadkuu jecel yahay buu maalinta qiyaamada ah meel la gelayaa tiimka UK haddii maalinta qiyaamada naarta lagula geeyo ka war ya tiimka aad taageersantahay ila waa gaale haddayna gaalo ahayna waa kuwo islaamnimo sheeganaya oo faasiqiin ah jacaylka qalbigaaga galay iyo taageerada aada u haysaay hadday sabab u noqoto maalinta qiyaamada in lagula soo xashriyo oo lagula keeno oo naar lagula geeyo soo khatar ma dhallinyaradeenii loo baahnaa inay u fikiraan ummaddan gadoonsay waxaa idiin taalla bulshadiinaa baaba'day sidaad u noolayn lahaydeen waxaa idiin taalla mustaqbal aakhariya inaad wax dhisataan inaad rag iska celisaan oo adduunkan maanta la qaybsanayo inaad miisaskiisa wax ku qaybsanaan oo xaqiina dhacsataan baa idiin taalla banooniga dushiina lagu ciyaarayo inaad fahantaan iyo ciyaarta socotaan loo baahanya haswiga iyo maskaxda laydinkaga duulay iyo haysiga laydin haystiyo gumaysiga macnawiga laydin gumaysanayo inaad fahantaan baa loo baahanya laakiin waxaan macnolahayna dad ku wareegaysataan soo wax macno laa maana walaalayaal ya aaway raggii dhallinyarada 17 jir isagoo ah baa waxaa loo sii dhiibi jiray ciidan dhan oo abubakar iyo cumar ay ku jiraan inuu hogaamiyo 17 jir markaasuu intuu halkaa ka kaxayo ruum ka soo dagaalami jiray oo furus la soo dagaalami jiray waa wiil 17 jir ciidan uu wato 17 jirka maanta joogay waxar lugla lagu xalaysan maayo ilaa dayacan soo saasba marka dhalinyaro meesha joogtaan aynu kor uga kacno caalamkana aynu fahanno risaalo aynu leenahay risaalada aynu leenahay aynu gudbino caalamka ka gadno laakiin yeynan waxaan macno lahayn laynugu maaweelinin waxaa loo keensaday in laynugu dilo maskaxdeena lagu qaato waqtigeena lagu qaato xoolaheena lagu qaato intaa unbaa loogu talagalay wax macno leh maaha wabillahi tawfiiq إن شاء الله تعالى سؤال وقدم يسمع خلال كور كاميرا صوت وقدم يسمع خلال الشيخ وإله درس مفروشا sawirka kaamirada ah wuxuu soo guda gelayaa sawirada gacanta lagu sawiro iyo midka kaamirada lagu qaado waa isku mid nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuu lacnaday dadka wax sawira hal mid bay ka soo reebaan culimadu waxay ka soo reebaan haddii ay tahay sawir laga maarmi waayo sawirada dokumentiyada lagu qaadanayo waa laga soo reebaa sawirada waxaa laga soo reebaa cashaladaha diin ahaan dadku uga faa'iidaysanayaan oo loogu gudbinayo duruusaha way ka soo reebaan waxay ka soo reebaan sawirada daruuriga ee laga maarmaanka waxaa iyagu asalba aan ku jirin oo ka reeban oo aan iyagu nahyigaba gelayninba sawirada waxyaalaha aan noolayn sida
sida geedaha iyo dhagax yani buuraha iyo yani guryaha iyo magaalooyinka iyo kuwaas iska banaayay ama noolaha way waxa laga hadlay noolaha sawirada marka asalkoodu waa xaraam qaaditaankooda ama camera ku qaad ama gacanta ku sawir nabigu ma kala qaadin salawaatu rabbi wasalaamu calayh lacana allahu almusawiriina buu nabigu sal alay slam kuwa wax sawira lacnada ilahay ku dhacdo ninkii yidhaahda kuwan yani camerada lagu qaadayo kuma jiraayo meeshii lagaga saaray baa loo baahan yahay ilan sawir baa la yidhahda soo sawir maaha xagee baa lagaga saaray marka xagee buu nebigu ku yidhi kuwa camerada lagu qaada mooye xagee ku taalla ma jirto warkaas saas daraaddeed waa in la iska daayo albanada dhallinyaradu ay sawirada ku haystaan suura gogoye khaasatan kuwa naagaha qaaqaawan waxaasay urursadaan dhallinyaradu waayaha alban dhan oo waxaad arkaysaa naag qaawan iyo qashin uu ka buuxo gurigu yaalla malaa'igta ilahay ma soo gasho subxana wa tacala guri sawir dhex yaalla ama ay uu ku jiro sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh sawirada noocaas oo kale a marka looma baahna iska daaya oo iska tuura dhib wuxuu inaga haystaaba waa balaayo waayahan lagu ibtilaysan yahayo si kasta haddaad u dadaasho xataa joornaal gurigaaga laga waayi maayo dhex yaal oo sawir ku yaal soo ma laakiin intaan dadaali karno waa inaan dadaalno wixii laga maarmi waayo sida sawiradaas lagu samaysanayo dukumentiyada iyo baasboorada iyo kibaandhooyinka iyo sidoo kaleeto sawirada maalan waxa weeye yani cashiradaha la duubaye diinta lagu fidinayo oo kaleeto waxyaabaha noocaas oo kale wixii kaleeto in la iska daayo waxaa ka mid ah kuwan aroosyada la duubayo aroosyada la duubayo waa xaaraan sawirka laga qaadayo waa xaaraan xataa haddii rag keliyasa la duubayo maya dumar warkooda iska badda rag iyo dumar isku dhex jira iskaba dha naaga qaaqaawan oo la duubayo warkeeda iskaba dha duubista lafteeda la haystaa maxaa yeele wax faa'iido ku jirta male maxaa faa'iido ku jirta hadda haddii lasoo duubay arooskii dhacahayay maxaa laga faa'iidaysanaya adiga haddaad daawato maxaad ka faa'iidaysanaya ya sheekho waxaan rabnaa inaan arooska duubanno muxuu kuu tarayaa duubtay xusuusa ayib haddaad xusuusatay maxaa faa'iidaa xusuusta faa'iido ma ahayn xusuusta maxaad ka faa'iiday ma camal bay kuu faa'iidaysay ma xoolay kuu soo kordhisay ma waxbaad ka waxbaad ka faa'iiday saas daraaddeed wax macno ku fadhida male wax macno ku fadhida ma jirto waana asalkeedu waa xaraam waa in la iska daayo wey in la iska daayo khaasatan hadday dumar ku jiraan dumarkii qaawan wixii baa banaanka la soo dhigay ninka waxaa ugu daran naagtiisii oo qaawan intuu camera ka duubo ama rag inay ka duubaan ogolaado haddana meelaha lagu daawanayo waa dayuus midkaas dayuus waay maxaa yeele nabigeena wuxu uhi sal lla alay wasalam 3 jannada ma galaan buu nabi uhi sal lla alay wasalam 3daa waxaa ka mid ah mudminu lkhamri ninka khamrada cabba ee khamrada cabitaankeeda daa'ima iyo manaanka wuxuu bixiya ninkii gallad ku sheegto dadka ku galladay waa riwaayad kale waa jira ka saddexaad nabigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam wadayuus dayuuskiibuu nabigu fasiro wuxuu yidhi waa ninka reerkiisa xumaanta raalliga uga ah jannada ma gala buu nabigu sal lla lay wasalam naagtaadii soo qaawan oo shaydaankii loo soo geliyey shaydaankii taajka inta loo soo geliyey la sawiranayo hadhowna meelaha laga daawanayo raalli haddaad ku noqoto dayuus baa tahay dayuusna jannada geli maayo buu nabi maxamed yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh asturo naagtaada ha ku asturnaata maxaa ragga kale indhahooda u qabanaya miyaadan kiiro lahayn oo masayr lahayn naagtaadii oo qaawan markay rag kale indhahooda ku dhacayaan oo fiirsanayaan miyayna raganimo iyo kiira kugu jir doofaar baa masayr la-aan loo cadaaba bay dhan soomaalidu ma doofaar baa tahay marka waxaa loo baahan yahay inaad leedahay kiira kugu jirto oo raganimo kugu jirto ood xaaskaaga aadan u ogolaanin inuu nin kale arko jidhkeeda la arko la sawirto banaanka iyadoon asturnayn inay baxdo waa inaad ka dagaalantaa la doonaya laakiin adigiiba haddaad horbood ood u yeedho ood ka shaqayso ood gurigii ku bilowdo gurigii hadda la aasaasahay odaygiiba hadduu waxaa wadoo ka shaqaynayo soo balaayo maha walale waxaa la yidhahdaa ida kaana rabu lbeyti biddafi daaribun fashiimatu ahli lbeyti kulluhum raaqisu odaygii guriga u weynaa hadduu durbaanka garaacahay soo wixii guriga joogay oo dhan markaa dhaanaska ciyaari mahayaan ya waa isruxayaan wixii haweenaydii caruurtii kulli waa inay isruxaan odaygiiba hadduu durbaanka garaaca marka oday baa tahay oo nin mas-uulaad guriga ka tahaye munkarka iyo xumaanta la dagaalan gurigaaganna xumaan ha ku asaas walaalayaal masaladaas ku baraaruga guriga markii ugu horreysay la aasaasayay ilaahay haddii lagaga cadhaysiiyo
ilma nooceebaa ka soo bixi kara guriga ilaah baan ku dhaariyay guur ilma nooceebaa ka dhalay maxaa ilmaheena sokoro ka dhigay mooriyaantan ina soo qixisay maxay ku yimaadeen bay idinla tahay ya waxan kadaata dhacaya iyo daydagan iyo waxan iyo ilmahan yani sokoraha noqday iyo ilmihii faraha ka baxay iyo sababtu waxa weeyaan ilmihii markaynu guriga asaasaynayna taaj iyo waxaynu ku asaasnay shaydaankii taaj ahayo waxaynu ku asaasnay maxay iyo sawir iyo wax la qaawan iyo rag iyo dumar isku dhex jira ilahay baan kaga cadhaysay sooma markii aad isa arkayseen adiga xaaskuna bisinka maada u qaban shaydaanna maada ka naaray guriga markuu dhashay oo uu yimidna diin lama tusin ilaahay baan idinku dhaariyay soo shaydaan noqon maayo ilmahaas ya marka ilaahay kaga cabsada guryihiina oo waxaa la doonayaa walaalayaal daahiradan sawirka iyo daahiradan taas aroosyada la sawirayo iyo macaasidan arooska ku imaanaysa waayaan aad bay usoo kordhaysaa waana dhaqan ay dadku kala yimaadeen wadamada reer galbeedka laga keenay wax Soomaali horay u taqaanay ma ahayn ummadaha markaynu dhex galno ummad walba xumaan baan ka soo qaadanaa waxa wanaagsan bal ma soo qaadanaa ilbaxnimadii horumarkii tiknoolajiyadii computerkii la sameeyay aqoontii iyo tacliintii nidaamkii iyo kala dambeyntii Soomaali soo qaadatay miyaad aragteen oo ka timid wadamada laakiin waxaad arkaysaa Soomaali qashin wata ya Soomaali qashin wata soo xambaarsaday halka ka yimid Soomaali qashin wata afkaar akhlaaq xun يعني قشن سوقات ساسوي marka aynu noqono dad ayagu mabdaoodii akhlaaqdooda gudbiya laakiin dad wax qaato oo xumaanta qaatayna noqon haddaan ummadaha wax ka qaadanaynana wax wanaagsan ka qaadano xumaantayna ka qaadan hada billahi tawfiq sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk تفضل شيخ انت سو وقت كده معك قالوا لي ممكن تفيد كلام والله ممكن شيئا قالوا لي في اليوم والله كلام اليوم كلام محالات خاصة إنك كوسا سنتهاي مثل في عام سؤال شو إنك حالات خاصة هذا كوسا سنتهاي قيمين تذي لا هاي ماشى قوني ذا إن لفهموا الله قيمة يوبان أما في عام هذا يتهاي waxyaalaha iimaanka jabiyo oo buriyo waxa kamida ruuxu inuu gaalada la soo safto oo muslimiin uu la dagaalamo soo gaalo la safan waxay kamid tahay arrimaha nawaaqidul iimaan salaada waxyaalaha buriyo soo ma jiraan hadoo salaad ku jirto haday neef ka timaado salaad ma ku waysabiya ku jiri ma sidoo kale iimaankana wax buriyo leeyahay oo hadaa la timaado iimaankii uu jabay baaba'ay maxaa kamida in aad muslimiin iyo gaalo ishaya gaalada inaad la soo safato la shaqeyso muslimiintana dhib gaarsiiso xagee laga qaadanaya quraanka laga qaadanaya ya ayuha alladina aamanu la tattakhidhu alyahuuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum wa subhanahu wa ta'ala ninki ka waliyeelasha meesha ugu sarreysay waxa weeye inaad la soo safato dagaalka la gasho rabbi wuxuu subhanahu wa ta'ala ruuxaasi iyagu ka tirsan ayagu kamid yahay rabbi subhanahu wa ta'ala nabiguna wuxuu sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum ninki dad isu ekaysiyo dhaqankoodii iyo afkaartooda qaatay ayagu kamid la tattakhiduu aduwwi wa aduwakum awliya war cadawgayga iyo cadawgiina awliyaha ka dhiganina aad isxigsataan oo isu hiilisaan oo jeclaataan marka waxay ka mid tahay masaa'isha iimaanka burburiya oo lagu gaaloobay islaamka laga gabaxo haddii si khaas ah ay tahay shakhsi gaara iyo meel gooniya ay ku saabsan tahay miisaankeeda ilaa maxaa yeelay shariicadu labay kala leedahay laba arrimood baa kala jira qaacida guud marka laga hadlayo iyo marka ruux miisaan la saaray hadda mesela aragto ruux u sujuudaya sanam camalka uu sameeyo soo gaalnimo ma haddaad aragto ruux ilaahay cid aan ahayn baryaya camalkiisu waa gaalnimo quraanka sheegay soo laakiin waa gaal ma dhihi kartaa hebel maya waxay u baahan tahay in la fiiriyo maxaa u geeyey soo maxaa u geeyey ma jahilnimo haysa ma aqoon darra haysa ma shubha ku dhalatay ma mukrahba ma la qastay ma ishalmaansan yahay
وإن ميزان قولي الله صار صوم إنسان قال ويلا دينو دين تلقى صار حوالي يا بعدك مرمض الروح فرح وكضرب مدني فرح ومربط وانتو كاتم بتو فهذا لو حكى صباح قال لي ما اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك وانت يدوك ما قالوا لي ما معاذ با انتو كيم الشام أو أركي قال يجوا يسوع سجوده هي أو النبي قال يبغوا سجوده النبي صلى الله عليه وسلم markuu nabigu yiri maxaa sujuuday wuxuu yiri nabi Allah kuwa aan nabiyana ahayn gaala abaaba loo sujuudahayo madaxnimo sheeganahay adigoo nabi ilaahay seena kugu sujuuday nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam macaadu saamaari macaadu zawaaje ilaahay kaliya iskale buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma dhihin macaadu waad gaalowday soomardan khalqi kale ruuxi u sujuudo soo gaalnimo ma laakiin ruuxa laftiisii markii miisaan la saarayo maxkamad la saarayo waa in la fiiriyo waxba u geeyay wixii waa in laga soco markii laga saxo kadib hadduu ku adkaysto markaas la xukumay ma la fahmo walaalayaal marka masaladu haday ku saabsan tahay waaqic muayyan ah miisaankiisa gaar ku leeyahay si caama haday tahay masaladu waxa weeyaan waxay kamid tahay nawaaqida iimaanka buriya ayay kamid tahay wabillahi tawfiiq جزا الله الشيخ محمد عمر على هذه المحاضرة الطيبة إلى سبحانه وتعالى شيخ أسنا كم في اليوم حاضروا القيم قالوا يوصل في ميزان حسنات في سنة قدرة إله سبحانه وتعالى وحن خبر إلينا إنه نبيه هو هذا الكون السند بالإساء والمطلع إسلامتنا والشرطة ترفع عن الفعل أخوانا في الله محاضرة القيم هذه يوصل في إني نتدبر خصوصا لأنه خصوص كبار سيد نوصل بإذن الله سيد نغطق بالعين سيد مريمان في نوصل بالعين أيضا بالعين واحد من الأوضاع خاصة لي فكيف فرض الله حول المسجد يوم حضر أي مسائل الشيخ وسيري حصل كلام واحد يعني يقول كلمات كثير من ساعة يوم حضر لي أقيمها فرضي حللتها هاي الشيخ النصر الشيخي هذا وجزاكم الله خيرا وشكر الله لسعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.